السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. aqoonyahanka waxaa maqlaysaa meel oo dad mise qabaa'il ha noqdaan mise mas-uuliyiin ha noqoto mise maamul degmo ha noqdo wax un meel lagu qabanayo xaflad ah. Kadib waxaa leeyahay qof baa hadlaayo wuxuu leeyahay meeshaan waxaa wada fadhiyo mise waxaa xafladan kasoo qayb galay siyaasiyiinta iyo odayaasha culamaa udiinka iyo aqoonyahanada uu leeyahay. Marka waxaa isweydiiyey micnaha maxay ku kala duwan yihiin horta hore aqoonyahanka iyo culamaa udiinka maxay ku kala duwan yihiin, mise waxaa loo fahamsan yahay culamaa udiinka in oo micnaha uu aqoonta oo sheeganayo culamaa udiinka aqoonta micnaha oo sheeganayo inaysan aqoon ahayn miyay aaminsan yihiin, mise waxay aaminsan yihiin in aqoonta uu sheeganayo ninkan culimada ah oo micnaha leeyahay culamaa udiinka aqoonyahanada hadan gadaal laga sheegayo micnaha ayaga ay ula jeedaan sida meesha ka cad aqoonyahanku inuu yahay midka maadiga bartay laakiin diini aan shuqul ku lahayn. Saas miyaa? Mise aqoonyahanka dhabta ah waa midka culamaa udiinka ah waayo oo waa la kala saaray oo keliya. Aniga ra'yiga qabo mise sheegaan dadka culamaa udiinka ah mise culimada aqoonyahanka dhabta ah horta waa midka culamaa udiinka waayo ma aha ninka maadiga yaqaan ma aha. Sababta taas micnaha ku cadeynaysa waxay tahay in maalin walba dadka aqoonyahanada sheegta oo maadiga bartay ama sayniska bartay horta waxaan wax walba oo meel walba aqoon walba horta aqoonta sideeda la sheegayaba waa information waaye waa warbixin qofka uu ogaanayo mise oo micnaha uu soo micnaha wax ilaahay abuuray laakiin la ogaanayo waaye ma aha wax cusub asaga uu keenay ma aha. Marka ayaga waxay aaminsan yihiin dadka aqoonyahanada isku sheega oo sayniska iyo tiknoolajiyada bartay horta waxa aan diinta laga soo saarin ama laga soo bixinin horta ma yaalaan. Wax walba diinta ayaa laga soo saaraa ayagana ka soo baxaan adinkana waa ogtihiin ma garataan waxaa jira diinta lagu sheegay 1444 sano ka hor lagu sheegay ayaa hadda waxay leeyihiin daraasaad ama cilmi baaris aan sameyn waxaa la ogaaday tacsiga inay baalna sun tahay baalna daawo ay tahay alleeyahay. micnaha dadka axaadiista nabiga sal alla alay wasalamna 1440 sano ka hor igo lasii ogaa laakiin micnaha waxa keenay in culamaa udiinka iyo aqoonyahanada la kala saaro waxay tahay aniga